هاي جايز السلام عليكم وانا قاعد افتح ابراهيم حق نقرا سocotana waa Somaltech maanta waxaan ka hadli doonaa telephone system keena cashirkii ugu horeeyay oo noqonaya ama chapterkii ugu horeeyay oo noqonaya introduction in faano telephone system ku waxa uu yahay iyo taariikhdiisa qaabka uu u shaqeynayo iyo maxay heeday waxyaabaha kala duwan oo soo maray inaynu ka hadalno okay waxaan u gudageli doonaa iminkana inaynu maanta ka hadli doonaa historygiisa iyo telephone systemku waxa uu yahay inuu soo qaadan doona definitions dhow definition oo kala duwan iyo historyga uu soo maray okay aynu bilowno introduction kan qaadana waa chapterkii ugu horeeyay wuxuu ku saabsan yahay introduction to telephoneka su'aasha ugu horeysa isweydiinaysa waxa ku noqonaysa muxuu yahay telephonku okay telephonku sideen ognay ereygu horey soo sheegnay tele macnaha markaan telecommunication ka soo hadlaynay macnaha wuxuu sheegayaa far buu sheegay macnaha distance buu sheegayaa marka waa erey Greek sidoo kale phone wuxuu sheegayaa laba macno sheegaya wuxuu noqonayaa voice ama sound waa cod ayuu sheegayaa ereygaas oo la isku daray macnihiisu waxa weeye waa distance voice waa codkii meel fog gaadhayay marka si fudud waxa oran karaysaa telephone macnihiisu waxa weeye waa codka gaadhaya meel fog shayga ku saamaxayay way ayaa loo yaqaanaa telephone okay waxaynu sheegi doonaa definition kale oo phone sheegaya phoneku waxa weeye waa qalab ama device ku saamaxaya in aad information key ama conversation ka dhaxeeya laba qof ama wax ka badan in ay isweydaarsadaan oo information key ay ku sameeyaan exchange ay information keys wadaarsadaan oo waliba noqonaya meel fog in uu gaaro ayaa loo yaqaanaa phone okay marka waxaan soo qaadanay saddex maxay ahayd definition oo ku saabsan waxa uu yahay phoneku ama telephonku waxa uu yahay waxaan soo qaadanaynaa ka ugu dambeeya marka telephone wuxuu leeyahay waxa weeye waa qalabkaas wuxuu ku saamaxayaa si simultaneously at the same time macnaha ah in uu qofku uu u sameeyo transmitting iyo reception waxa loo yaqaan in waxna gudbiyo waxna maxay ahayd helo waayo telefoonka markaad ku hadlaysid qofka codkiisa waad maqlaysaa hadalkiina waad sheegaysaa simultaneously ayuu u dhacayaa okay waxa loo yaqaano labada direction ba at the same time u dhacaya su'aashiina waad helaysaa qofka la hadlaysa waad maqlaysaa codkiina waad u sheegaysaa waxa doonaysaa okay marka waa simultaneously marka hadii soo koobno telephone waxa weeye shay ku saamaxaya in aad information qof kale la wadaagtid qofkaas oo jooga distance-ka aad joogtid distance-ka fog macnaha xagga aad joogto meel aan ahayn buu joogaa ayuu telefoonku ku saamaxaya marka telephone waxa loo yaqaanaa definitionska marka saddexda definition ka jeceshay ayaad qaadan doontaa laakiin ereyga telephone waxaanu sheegnay inuu erey Greek uu yahay oo labada kelmadood ee tele iyo phone uu ka kala samaysan yahay ka kala kooban tele oo sheegaysa far ama distance iyo phone oo sheegay voice cod ama maxay sound labada wada ka karta markaad akhrinaysid telefoonka articles ku saabsan okay sidoo kale waxaanu eegi doonaa historyga telefoonku shay kasta wuxuu leeyahay waqti uu bilaamo iyo history ayuu soo maraa marka waxaanu eegi doonaa cidii soo saartay iyo historygii okay sad xagan ka arkaysid waxa loo yaqaan waxa soo saaray ninka magacan leh sawirkiisa xagan ka arkaysid oo loo yaqaan Alexander Graham Bell wuxuuna dhashay 3 March 1847 ayuu dhashay waa Scottish waa American inventor scientist teacher intaba weeye waayo dadka dhagoolka ayuu wax bariyay maadaama hooyadii ahayd qof qof dhagala wuxuuna dhintay 2 August 1922 macnaha waxa weeye waa qofka invent gareeyay telefoonka soo bilaabay telefoonka caadiga ah informationka la isku wadaarsanay waxa jira dad badan oo scientist oo kala duwan qaar Italiana qaar German ah oo soo saaray nin loo yaqaan Elisha Gray oo waqtigii xilligan oo kala soo saaray 1876 aan arki doono xilligii ugu horeysay telefoonka la soo saaray ee uu soo saaray Alexander Graham Bell isaguna wuxuu ahaa Germany marka nooc telefoon oo kala uu soo saaray marka isagana wada akhrisan doonta way jiraan laakiin telefoonka caadiga waxa la isku waafaqay walibana shahaado lagu siiyay ninkan inuu yahay ninkii ugu horeeyay ee telefoon shaqeeya ee soo saaray okay Alexander wuxuu invent gareeyay telefoonka waxa loo yaqaan maxay ahayd macnaha codkii ugu horeysay ama in lagu hadlo telefoon wax la tijaabiyay oo noqonaysa markii ugu horeysay telefoon
hadalkiisa ama isticmaalkiisa la sameeyay 1876 waxaana ahayd bishii March 10keedii waxaa lagu sameeyay laboratorygii Alexander waxaana caawinayay ninkii ay saaxiibka ahaayeen ama caawihiisa ahaa oo loo yaqaanay Thomas Watson marka wuxuu yiri ereygii ugu horeeyay ee telephone la iska weydaarsaday wuxuu ahaa Mr. Watson, come here, I want to see you. Watson oo kaalay waxaan doonayaa inaan ku arko macnaha waa ereygii ugu horeeyay ama statementigii ugu horeeyay ee telephone la iska yiraahdo waxaan ahayd bishu March 10keedii 1876 waxaana isweydaarsaday Alexander Graham Bell oo ah qofkii ugu horeeyay ee telephone invent iyo qofkii la shaqeynay oo ah Thomas Watson marka waxa weeye historyga uu leeyahay telefoonku waxay hayday intaas ayuu noqonayaa markaas history program soo koobay wixii ugu muhiimsanaa ee qofku inuu ka ogaado historyga telefoonku soo maray ahayd xagga baynu ku sheegnay waxaan ku hadli doonaa casharada soo socda maxay hayday waxyaabo components iyo functions ay ku shaqeynayaan iyo qaabka ay u shaqeynayaan telefoonadii hore sidoo kalena waxaan ka soo hadli doonaa telefoonka line si fiican u sii dhex gari doonaa inagoo ka sheekeyn doona historygiisa isaga iyo qaabka uu shaqeynayo okay marka casharkeenu wuxuu ku ekaanaya maanta historyga uu telefoonku leeyahay iyo maxay hayday telefoonka qeexistiisii iyo cidii soo saartay haddii ay jiraan wax su'aalo aad qabto waxaad iga soo sheegi karaysaa telefoonkaas maxay hayday iyo emailkayga iyo instagramkayga sidoo kale fadlan inaad caawiso anaga sharaf bay noo tahay sababtoo ah waxaan ku dhiiranaynaa inaan casharo kuwan la mid ah oo tayada idinkayda anfaca inaan samayno oo ku saabsan telecommunicationka maadaama telecommunicationka uu yahay shay aad u muhiim ah oo ay nolosheenna wax badan oo kamid ah ku base garaysan yihiin waayo telefoon weyn isticmaalaa lagana yaabaa inaynan wax badan ka ogeyn okay casharkeenu marka maanta intaas baynu ka kanayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin dhammaantiin